walaalkay aadan caydiid waanu ducaynayaa in ilaahay caafimaad saraacana siiyo in ilaahay xaaladda uu ku sugan yahay in ilaahay xaaladda uu ku sugan yahay ka dulqaado in badan baan soo wada shaqaynay aadan caydiid waa qof qalbi xaaran waa qof wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay caafimaad saraacana siiyo idinkuna waxaan idinka codsanayaa inaad garabkiisa istaagtaan qof kasta oo qurux badnaa mid kasta oo jeclayn iyo mid kasta oo nacbaynba mar uun bay qaadaa ajashu amba mar uun buu xanuunsadaa oo ta ilaahay dulimataa markaana badbaado xagga alla mooyaane xaggeena waxba kama yimaadaan gacanteena waxba kuma jiraan balse maanta waxa duco inooga baahan iyo garab istaag yahiil walaalkeen aadan caydiid oo kamid ahaa warbaahinta ka howlgala magaalooyinka ay degto Soomaalidu oo aad nolol jecel wararkiisa tan iyo yaraantiisina ahaa wariye ku shaqeeya warbaahinta kala duwan ee deegaamada Soomaalida ayaa maanta isbitaal ku jira xanuunka macaanka amba sonkorowga kaasi oo ku xoogeystay kadib markii uu muddo badan hayay xanuunkan oo 10 sano qabay ayaa ugu dambeyntii ku xoogeystay waxa uu fadhiisay labada kaliyood waxa uuna ugu dambeyntii ka qaaday labadiisii indhood ee quruxda badnaa oo wax walba ku arkayay wax walbana uu ku qabsanayay aadan caydiid waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inay shalay daawanayeen ku xidhnaayeen wararkiisana ay xiisayn jireen waqti badan ay ku bixin jireen balse maanta aysan sidii oo kale u xiisaynayn oo ay ciddii warka soo deysoon xiisaynayaan walaal macaan shalay toole wuxuu ahaa walaalka maantana waa walaalka maanta aduu dhiban yahay waxa laga yaabaa inuu qof ruuximka u naxariisto oo bari ka baxo oo quruxdiisa iyo wararkiisa iyo dhul cadeyntiisa la soo laabto balse waxa maanta aan ka codsanaynaa waa inaad caawiso walaalka aadan caydiid caawimaad hadaad u helayso dhaqaale iyo hanti lagu geeyo dhaqaatiir caalami ah iyo in hadii kaleba hadu helayno u ducayso amba aad si sheer gareyso way hadaad u ducayso hadaad sheer gareysaba waxaad ka qayb qaadatay inaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga caafimaadka haye inaad la tacaashay waqtigaaga aad ku bixisay qayb kamida iyo hantidaada waayo ducada wax ka qiimo badan ma jirto oo dunida la siiyaa saaxiib aadan caydiid wuxuu ku jiraa isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa sidoo kale walaashi ayaa u geeriyootay isla xanuunka sonkorowga isaguna wuxuu ugu jiraa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa sidoo kale waxa aad looga cabsi qabaa in nabarkii lagu sameeyay kaliyaha markii la qalayay nabarkii qalliinka lagu sameeyay ayaa ilaa hadda isku imaan way afkiisu waxaanu noqday nabar aad u xanuunsanaya aad u bukooday kadibna afkiisa ayaa kala tagay taasna waxa dadka aad looga cabsi qabaa dhaqaatiirtu inuu isku bedelo kansar ku dhaca jirka bini'aadmiga taasna waa arrin warwarkeeda leh walaal hadaad dhaqaalaha haysana walaalka ku caawi hadii aad kalena ducada ku caawi insha Allah fiidiyogan share saaka waxaan isugu nimid salaadiinta iyo boqorada iyo culimada awdiinka wiilka yar oo 22 jira oo isagoo 10 jir oo ku dhacay macaan 12 sanadood buu qabay macaanka 12 ka sanadood intii hore uu iska socday imika waxa istaagay labadii kaliyood baa fariistay indhihii buu beelay inaan hore oo ay walaalihiin waxa xanuunkaas macaankaas soo dhimatay iyadana labada kaliyood baa fariistay oo iyana waa dhimatay qoyskaasi waa qoys iskuulada ku habsatay ilaahay baana keenay waxaanu ka codsanaynaa dadka reer Soomaaliland ee muxsiniinta ama ummadda islaamka ah wixii islaamaha ilaahay garanaya inay wiilka yar u soo gargaaraan iyo qoyska dhibaataysan aabihii uu la rafaadsan yahay imika halka in gacanta laga dalooliyahay luqunta laga dalooliyay luqunta marka waxa laga yaabaa in haday marka xitaa daloolkaas uu sii socdo ay function keento qoyskuna waa qoys daciif oo waxba haysanin marka ummadda reer Soomaaliland ummadda Soomaaliyeed ummadda muxsiniinta islaamka intaba waxaan si sharaf iyo xushmad iyo karaamo iyo qadarin la uga codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan qoyska loo soo gargaaro oo wiilka yar loo soo gargaaro waa ina yar oo noloshii ilaahay caafimaad ilaahay uma waayin ilaahayna caafimaad saraacan u bareynaa wana la isku keeneeyaa maalin qof waana dhibaato haysataa dadka muslimiinta la isku gargaaro kitaabka quraanka ayaa inagu waajibiyay islaamnimada ayna faraysa ehelnimada ayna faraysa qaranimada ayna faraysa in loo gargaaro wadadkii la yiraahdo loo gargaaro dhakhtar dibadeed
oo Turkiga ama Hindiya aduu dhakhtar dibadeed bunkaas u baahan yahay dalka gudihiisa waxba laga qaban karo markaas sidii dhakhtar dibadeed loo geyn lahaa falowgeed in la qabto markii dadka naarta jahanname saqara la ilaa galay la weydiiyo oo la ilaa maxaa ku mutaysateen saqara inaa gashaan waxay yidhaahdeen lam nakun min almusalliin maanaan ahaan jirin kuwa tukada walam nakun nutcimu lmiskiin miskiinna wax maanaan tari jirin oo maanaan quudin jirin si aynu goodigaa uga badbaadno aniguna aan goodigaa uga badbaado walaa yaxudu calaa طacaami almiskiin ayaan wejigiina sharafta la isu soo hortaagay sababta aan isu soo hortaagayna waxa weeyaan ruuxaa dhibban ee aniga hortay ay akhyaarta iyo maxaanku idhaa waayeelka iyo salaadiintu ay ka hadleen waa ruux aad iyo aad u dhibban waa ruux keliyaha ka jiran run ahaantii waxaan soo sheegay ama raaligelin ka bixinayaa in keliyaha ayaa laga qalayaan dhahay halka laga qalay maaha walaalayaal keliyaha ee waa luqunta sidaad wada arkayseen ambaad ku soo maqasheen codkii suldaanka luqunta ayaa laga qalay halkaasna waxaa laga cabsi qabaa inuu infection gaaro san hore idinku sheegnayba ama muuqaal qaybtiisa hore ka soo hadlay saaxiibayaal wuxuu u baahan yahay dhakhtar dibadda walaalkeen aadan caydiid oo wadamada horumaray sida India iyo Malaysia wadamada horumarka gaadhay taasna waxay u baahan tahay qarash kolay wad garanaysaan hantida ay ku baxaysaa yarqaalaha ku baxaya qofda yarina ma awoodi karo balse shalay walaal waxa laga yaabaa inaad warkiisa dhageysan jirtay barnaamijkiisana aad xiisayn jirtay hanad jeclaan jirtay inaad horumar ka u gaadhay oo kala gaadho waqtiga uu indhihiisa qabay oo indhihiisa quruxda badan qabay lixaadkiisa quruxda badanna uu qabay sidoo kale uu ahaa qof shaqaysanaya oo cid bil aadana wax weydiisanayn balse maanta intaas oo dhan uu beelay inkastoo qadarta rabbina cid ka ordi karta aysan jirin maanta ma lahan indha wax ku arko mana lahan lixaad ku shaqaysto oo waxa fadhiyay labadiisa kaliyood walaal macaan meel kastoo joogtoba hadad ganacsata ayaa dad qurba joogtahay wad arkaysaa nambarada shaashada ku qoran ee waa caawin kartaa walaal macaan sharaf iyo karaamana ilaahay ku siiyo halkaad ka soo saarteen ilaahay wax ka qayb badan ku siiyo imikana kelihii waxay gaadheen ilaa iyo indhaha ayay weerareen sida arki doontaa ma aragteen ruuxaasi gurmad buu u baahan yahay gurmad islaamnimo ayuu u baahan yahay ilaahay maalkaa uu idiin dhiibay ee laynagu imtixaamayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u baahiyey in ilaahay baahi bini'aadmi aanu idin badin ayaannu hortiinna u soo fadhiisannay walaalayaalka muslimiinta ah dhammaantiinba yar iyo weyn caalim iyo dadweyneba akhyaarta sharafta leh waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa si naxariis leh in naftaa aynu badbaadinno waman axyaahaa faka'annama axya annaasa jamiican hal qof ninkii badbaadiyaa ummad dhan nin badbaadiyey buu ummadda muslimiinta ee nebi maxamed meel kasta oo joogtaba qof Soomaaliyeed kulay inta af Soomaaliga ku hadlaysa ayaa si fiican u fahmi doonta lahjada aan ku hadlayo iyo muuqaalkan in lahjada uu ka hadlayo sidaba balse Soomaalida laftirkeeda maaha dad yar ee waa dad aad u tiro badan in badan oo qaniina ilaahay si ay ku jiraan maalqabeenaha aato iyo kuwa qalbiga qaniika intaba waxaan qof kasta oo Soomaaliyeed si xushmad iyo karaamo leh uga codsanaynaa inay nambarada shaashada ku soo arkayeen ugu soo diraan waxay dhaqaale u hayaan caydiid ilaahay ha sharfo nambaradii ku dul qornaa aqalka ayo markii uu hadlayay sheekhuba si xushmad leh walaal ugu caaway waxa aad awoodo xataa ha ahaato $1 oo walaalka caydiid haddii aad xataa awoodina fiidiyoga walaal leexar soo kalena si share garee waayo waxay caawin u tahay inay gaadho saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale qiimo badan leh oo daawada kana soo falceliya fiidiyoga inuu gaadho walaal fiidiyoga share garee soo kalena leexar leegtiyo waxa u tahay share tuba inuu fiidiyoga si durko sidoo kalena YouTube-keena Cabdilla Deeqsan isagana subscribe saar fiidiyo ku jirana in share garee oo ku share garee baraha bulshada sidoo kalena walaal macaan subscribe saar jalanka san ku dhaafin waxyaalo aan soo gelino ee quruxda badan walaal in qisadana waa qisada cajiibka walaal ka faa'iideyso share garee ugu yaraan sidoo kalena walaal u ducee haddii aad xataa awoodin waxaan tiyaa